siyaasiyiintiina reewqooyiga ee aad foolaadkooda ka mid tahay 30 sanaad koonfurta joogtaan ku dhawaad haddaysan ka badnayn intaas waxa aad sheegaysa inaad midnimo ka shaqaynaysaan saalax axmed jaamac maanta dadka uu matalayay waxba uma galo deegaankoodina waxba kama gooyo waxa la leeyahay waxay muqdisho u joogaan inay bariis dhacsadaan oo ilmo korsadaan markii ay bariiskaas waayaan hargeysa ku laabtaan gacmahii taagtaan oo is dhiibaan shacabka muqdisho waxay aaminsan inaad cashuurtood ma ka korsataan adinkoon waxba ku soo celin maxaad uga jawaabaysaan aadaas ونو تاسي أرما إن لقيت شو منك قروح برنت سؤال شاسي نبى وحيري جوبني مرة ما تهدي لي سوى ذا جاي ما جودبونا جيت سجحنته هي قعر كعايوي وركها جاسي حلكن أنا كوجو علي عبد الله أنا جو حنضبط صعنا وأنو سنه هذي ساقرني rag waaweyn oo qarankan Soomaaliyeed inuu mid si ahaado in badan u soo taagna waa rag aad ka garanayso jaamac yare waa rag aad ka garanayso ceelaba faahiye waa rag aad ka garanayso Ali Khaliif Kalayd waa rag aad ka garanayso Yusuf Darre oo aniga kursiga ku soo fadhiyi jiray dooda go'nigoosadkuna waa dood siyaasi ah oo rag ka xajoonayo siyaasad lagu xallin doono dalka Soomaaliyeedna shaqooyinka ugu waaweyn ee ugu mudan baan u haynaa sida mas'uuliyiinta kale ee geyiga Soomaaliyeed ka kala timaada ay u hayso haddaad leedahay dadkii waxba uma tartaan nima eedaas aad bay noo qabataaba waxaanu u taraynaa maxay waa in aanu ka midha dhalino wada hadalladii iyo wada xaajoodkii waxaad soo dhagaysataa qodbadii 26 Juun ee sanadkii jeediyay meesha la yiraahdo xarunta gobolka waxa ay Soomaaliland ku maqan tahay dhaqanna maaha diinna maaha kala duwanaanshiyo weynna maaha waa arrin ku timi tabasho siyaasadeed xalkeeduna wuxuu saaran yahay mas'uuliyiinta koonfurta joogta ee siyaasadda ku jirta ee aqoonta leh ee door hogaamineed leh in inta la isu geegeeyo aragtiyaha miiska la soo saaro wixii xal u noqon lahaa arrinta bariiskana arigu maskaxdaada aad ka xaajo